السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيبتن waxay la socotaa insha Allah qaybtii labaad qaybtii saddexaad sorry fikradaha qaldan qaabka uga bixi lahayd iyo dhibaatada inagu saameynta inagu leeyihiin qaybtii saddexaad ayay maaragtay videogan la socotaa anigu aan ka hadlay ugu dambeyntii sida qaabka maaragtay qofka uu self help uu isku caawin karo iyadoo ay kala duwan tahay dhibaatada inta ay la egta qofka asaga dareemi kara laakiin waxa ugu fiican oo qofka uga bixi karo oo aan maaragtay ma sha Allah ayaan idin la share gareyn doonaa taasoo ah in aad maaragtay marka koowaad qofka waxaan ka soo hadlay RAS fikradaha maaragtay qaldan meesha ee activation dhanka brainka uu ka soo noqdo oo ah in uu qofka shaki waxa uu ka shakiyo maskaxdiisa soo galo marka uu soo galana ay activate samayso iyadoona maskaxdaada dhanka garashada unconsciously u dhaqaaqdo kadibna ay kuu keento wixii indhaha kuu furta oo ku tuso ilaa wixii dhan maalinkaaga dib u laabanaysaa wixii shakiga keenay iyo meeshu ka yimaada iyo qofkaas wixii uu leeyahay oo dhibaata kadibna ay kugu abuurto ina adiga aaminaad aad la timaadid kadibna ay maaragtay systemkaas u shaqeeyo systemkaasna inuu hadhowdi burburiyo maaragtay xiriirka dad kale ala leedahay guryo badan ay ku kala burburaan ama maaragtay familo badan uu maanta divorce-kana furniinka u bato dhankan kale haddaan kasoo hadlo oo because of qofka fikradiisa qaabkee marka lagu celiyaa the only way marka aad RAS ku celin kartid waa in aad la timaadid fikrad maaragtay wax cusub oo aad hijack ku samaysid aad ku qabatid qabashadaas aad ku qabanaysidna waa inaad fikrado aad cusub samaysid oo reprogramming aad ku samaysid ama maskaxdii filekeeda ku bedeshid filekeeda marka sidee ku bedeli kartaa fikradaha cusub maxaa ka dhici maxaa sidee yacni ugu bedeli kartaa waxaa ka mid oo kale negative thoughts-ka soo gala maskaxda inaad qortid markaad qortid wax opposite-kiisa ah oo kasoo horjeeda inaad qortid oo dhanka positive ah for example oo kale hebel wuxuu igu yiri waad fool xunta oo kale ama heblaayo inaad qoratid inaad tahay inaad qurux badan tahay laakiin waxaa jira system oon ka hadli doono next week insha Allah oo ah inaad ku soo celcelisid si ay RAS-ka u gasho oo dhanka activation-ka sababta u fiirso RAS activation-kaas wax qaldan uu active ka dhigaa oo dhibaato uu hadhowda adiga kugu soo noqoto waxa wanaagsanna waa adiga in aad og tahay gelisid maadaama RAS oo systemkiisu ku shaqeeyo adigoona ogeyn in uu wax maaragtay ku gudaha kuu galo oo xumaantii uu kuu soo saaro oo hadhowda adigana aamintid laakiin adiga waxaad isticmaali kartaa RAS-kaas adigoo thoughts-kaaga fikrado cusub la yimaada adigoo la yimaada ereyga qaldanaa erey kasoo horjeeda adigoo la yimaada maaragtay maskaxdaada iyadoo garashadii leh qabatid oo dib ugu celcelisid then RAS-kaas wuxuu ku xifdinaa new file new system kadibna wixii ayuu kugu soo celinaya marka sidee marka waxyaalaha ugu fiican alxamdulilah rabbil caalamiin dad islaamaan nahay dhibaatooyinkaana way ku dhacdaa qofka asagoo maaragtay ahludiina oo diintiisa wato oo qur-aanka wato salaadiisa tukanaya oo wax walba samaysta way soo galaan fikradahan waayo ibni aadan ayaa la noolnahay dhibaatooyinka saameynta way nagu timaadaa oo nafteeni ayaa shaydaan la xiriira sidee marka ugu fiican oo maaragtay oo qofka uga bixi karaa ka horta waa in Allah subxaanahu wa tacaala ku xirnaatid oo su'aal iska weydiisa xagga diintaada oo aad tiraahdid yacni qaabkee Allah ma ku xiranahay salaadiida waqtigeeda on time ma tukadaa duca ma ducaystaa every day adkaarteeda ma wataa subaxii ma ahay qof maaragtay ku haya afka kelmadda Allah subxaanahu wa tacaala marka waxyaalaha ugu wanaagsan qofka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala una siiyo ducooyin oo ku jira xusn muslimka ducooyinkaas waxaa number 1 ka ah oo aan isticmaali jiray alxamdulilah oo aan isticmaalo oo ah waxa ugu wanaagsan qofka carabka uu ku qabto oo ku celcelisid haddaad 7 times ku celcelisid waayo fikradahan qaldan waxay busy ka dhigaan ee mashquulinayaan cibaadada adiga Allah subxaanahu wa cibaadada adiga aad samaysan lahayd iyo connectionka Allah xiriirka la samaysan lahayd ayay ka dhexgala ogow waataan dhahay negative marka ay tahay fikrad ah waxay soo daayaan evil shaydaan a'uudu billah positive fikrad markay taana waxay soo daayaan wax wanaagsan waxa ka mid ah marka in xiriirka Allah subxaanahu wa tacaala waxa ka mid ah in aad everyday maaragtay nimcada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sii aad ogaatid waayo family xataa waa nimca ilaahay caqligan ilaahay ku sii waa nimca ilaahay aragtidan ilaahay ku sii waa nimca ilaahay garashadu ilaahay ku sii ku garatay in fikrad qaldan maskaxdaada ay soo gasho waa nimca ilaahay soo intaasoo dhan waa muhiim waxa ugu muhiimsan oo idin share gareyn doono markuu fikradda habeenkii maskaxdaada ay soo gasho badanaa dadka markaad seexan rabtid ama markaad wax wanaagsan aad samayn rabtid ay fikradaha qaldan ku soo galaan marka waa inaad kelmadda laa xawla walaa quwwata illaa billah ku celcelisid iyo ducadan ah inaad akhrisid
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إنه كل اللي ست 7 times إن أد استغفرت بديسيد و every single day عربك وكبحن أوجو عربك وعسلانا مرك أوجو الرئيسو وإلا وح هذا اللقب سن وRS كمسكح هذا اللي مو قبسن يعني وحقول لي سو دايا وح أذيك مرك انقلاب كسمينسا أو كد ذالسا سيدي أد كو قبل لحيد RS كاس waxa uu wato ila ma joojin karto waa active waa system brainkaada ku jiro oo aadan bedeli karin aadan qaban karin ka wada laakiin waad bedeli kartaa waxa ku bedeli kartaa maadaama uu garasho la'aan uu shaqeeyo adiga garashada u leh adiga marka waxa laga rabaa every day in aad badisid ku seexatid ku soo toostid so for example kala habeenkii marka madaxa dhigatid oo adkaarta akhrisatid maskaxdaada ay ku daarto ila maskaxda waxay raadsataa jawi degan jawi degan waxaan ka wadaa mar maskaxdaada ay ku degantaa oo isleeda seexo ayay waxay ku daaraysaa rikood dadka muusiga daartaan subxaanallah isku madaaliyaan soo maaha laakiin ayadii waxay ku daaraysaa rikoorkaasoo ah wixii hebel kugu dhahay heblo kugu tiri adiga intaasoo san wax lagu dhahay waxa adiga kontrooshida ma ahan way kugu soo noqonay maskaxdii soo maskaxdaas marka maxaa ku celinaysaa waa ina opposite ka samaysid wax ka soo horjeeda waa ina qortid qof ereygaas ku soo galay waraaq ku qortid opposite kiisa asamaysid sida anigoo kale hadda dadka aan therapy siiyo waxyaalaha maaragtay practicalka aan ku siiyo waxyaalaha waxa kamid ah qofku waa in uu qoraa wixii opposite kiisa ah oo dan uu ku celceliyo intii muddo ah waayo waxaan in muddo ah ay maskaxdaada ku jirtay waxay u baahan tahay si tartiib ah looga saaro so again ducada waa ina badisid oo ku celcelisid la ilaha illa allah al-azim al-halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم sorry لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم كوع العلي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كوع العلي وحكوع العلساء إن أد أفكا وكوهي سيد حسبنا الله ونعم الوكيل يو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إلا ما أردت عرب كاي ودنها ومن نقضه وحوق ولا قبصده مسكح دي مركو حب لابسا confuse معموله وحوليه ما أنت يعني كلام الله وقفك عفك كوهيا ورشدي factory workers وحكوا بلاويان أو thoughts كاجا إن كل شقيان إن energy ويلت إن كل جماعة إن أدكتد إن حسنوتي تانا ما عرفت اسكودي إن حبينك أسوق عد لبركعه أو before ما عرفت after midnight وكله لبركعه أسوق عد أو إلهي سبحانه وتعالى ودي سنسد إن كادميو وحن ما عرفت مسكح هذا سوق له أريد أكون علني سنة النقدان أريد waayo distresska maaragtay murugada qof kastoo soo mara dad maaragtay naga wanaagsanaa soo maray murugada way soo martay rasuulka sallallahu alayhi wasallam nabiyadii hore way soo mareen qaar ka mid ah marka maxay ku liibaanin waa in ilaahay u noqdaan وإن إلهي سبحانه وتعالى كحرنادان صوبتو أباور كاس عن الله يسنو إسلام أهان ما هيستان دتك كلام waayo marka kaliya xataa wax yar uu kugu dhaco afkaaga la soo boodid xasbuna allah wa ni'mal wakiil ama la soo boodid la ilaha illa allah al-azim al-halim la ilaha illa allah rabbul arsh al-azim la ilaha illa allah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsh al-karim elistas aku dhaysid ilaahay glorify that aku sameeynisid wuxuu ka tirtiraa ka masaxaya sababtoo ah magacyada ilaahay waa magacyada attribution ku sameeyo oo amaartay oo naga tirtira dhibaatooyinka naga ilaaliya waxyaalaha xunxun waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala xirnaashiisa waa wax aad u weyn waa wax ma aragtay dhibka ku haysta ka bixin kara marka insha Allah taa ku dadaal waxa aan sii wadi doonaa haddii ilaahay idmo next time anigoo aan sii balaarin doono RS kan aan ka hadli doono haddii aad fahanteen insha Allah commentigan igu qor waxaan idinka codsanayaa waxyaalaha aad sii rabtaan inaan ka sii hadlo commentiga ku reeba share gareeya subscribe dhaha waayo waxaan rabaa in ay worldwide dad badan ay gaarto oo dhibaatooyinkan ku jira si ay uga soo baxaan si ay u helaan qaabkay uga bixi lahaayeen anigoo Safiya Faarax Baando waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo iyo barwaaqo meel kastoo aad joogtaan always igu xasuuso ducadaada waana mahadsantahay. Assalaamu calaykum.